waxaa maanta magaalada Baydhabo ee gobolka Bay lagu soo gabagabeeyay imtixaankii dugsiyada sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. Wasaaradda waxbarashada ay u qabanaysay ardayda dhameysatay dugsiyada sare ee dalka sanad dugsiyeedka 2016 iyo 2017. Imtixaanaadka ayay wasaaradda waxbarashada sanadkii labaad ka hirgelisay guud ahaan dalka, iyadoo sanadkan ay u fariisteen imtixaanka guud ahaan arday tiradoodu gaarayso 23,000, iyadoo magaalada Baydhabo ay u fariisteen imtixaanaadka arday dhan ku dhawaad 800 oo arday. Wasiirka waxbarashada maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, gudoomiyaha maamulka gobolka Bay ayaa ka qayb galay xiritaanka imtixaanka maanta la soo gabagabeeyay. Ugu horeyntii gudoomiyaha maamulka gobolka Bay iyo waliba xubin ka socotay wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa goobta ka hadlay, waxayna u hambalyeeyeen ardayda dhameysatay dugsiga sare ee imtixaanka 5 maalmood u socday. sidee oo lan walba ogi sanadku amal waqtigu amal sin walba may dhiyay imtixaanka soo iskoolka la gabagabeeyo imtixaanka soo macnaajay ardayga tumayla masin wal baraday inni oo gudub tilaabadii waa bilaaw ka haytay hadlay tilaabada kiigdi oo inni isu jaamacad galo markuu professional nagado wal kala barad meeli isu gudubay waqtigii la deeray yaroo marka lan walba hanwiya waalidkii akoriyo nigaas tumayla masin habeelay maalinkii wala baraay tumayla masin hadalay ardayga oo salaadin ka lahay kulli may fadaayeen inni oo natiijo fayl ku helan walaagi dhii oo imtixaanka dhii marka magaalada Baydhabo waxay imtixaan ku gashay arday gaaraysa 772 arday oo 3 xarumood oo kala ah Salaxudiin Baydhabo iyo Cabdalla Dayro bartamaha run ahaantii waxay ka dhacay 39 galaasi fadhiisteen waxa kormeer ka ah 47 macallin oo laga keenay gobolka Bay si ay u noqdaan kormeer u ilaaliya imtixaanka iyo 6 qofood oo laga keenay dowladda federaalka Soomaaliya si ay u kormeeraan guud ahaan imtixaanka soo socdo afashanta bari waxa laga toban maado wuxuu noogu dhamaaday si wanaagsan alxamdulillah arday ay faraxsan ay ka wada tageen. Wasiirka waxbarashada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa gabagabadii imtixaanka la hadlay ardayda isagoo sheegay in wasaaraddiisa ay waqti badan ku bixisay sidii ay ardayda Koonfur Galbeed Soomaaliya ay sanadkan u noqon lahaayeen ardayda kaalmaha ugu horeysa ka gala natiijada imtixaanaadka. ogaada waxbarashada geega bilaabsigeeta waxbarashada geega dugsiga dhamaytan bilaaw ma dhamayno waxbarasho waqti badan iyo jid dheer aysan sugaaye dadaalaan fadee sidoo kale mahadnaqa Allah subhanahu wa ta'ala nin suurta galiyo amaan ninka dhameeyo holo geega inta nin gabgaboyti waa kala mahad kala hanjeediyay gudoonka gobolka Bay onkoray gudoomiyaha gobolka Bay anna wasiin balan qaade imtixaankii intii la siinka ma soo maasqno imtixaankii intii tartiib la siinka sax buundadii walaaysan shaqaysteen ana mukeerow muddada 5 maalmood ee uu socday imtixaanka kadib waxay ardayda iyagoo faraxsan oo ku hanweyn inay ku guuleysan doonaan kaalimo fiican oo qaba hami sare ay ka dareereen goobihii ay ka galeen imtixaanaadka. Cabdullaahi Nuur Aadan, magaalada Baydhabo.